oo dhibaato badan naga soo gaartay bulshada ku dhaqan ee xataa deegaanka degan kadib markay ka soo cawdeen in dhibaato badan ay ku qabaan markii la gaalay xilliyada roobabka iyo xilliyada kale ay baabuurta ama ay dadkii isbitaalada u socdo ama jaamacadaha ama isha baabuurta weyn xamuulka marto ay dhibaato aad weyn ku qabaan cabasho kadib waxa ururka wacyigelinta si isxilqaan u istaagay in wadadan oo si volunteer wax ugu dhiso shaqadii ujeedina maanta way bilaabatay ujeedina si marqaati ka tiin insha Allah ta'ala wadadan shaqadeeda way soo doontaa ilaa inta ka soo gabagabeyn doono run ahaantii waxaan leenahay wadadan waxa ku yaalo waa meeshan waa saldhig weynaa magaalada Beledweyne meeshan waa xaata centerkii xaata ama meeshii dadka laga wacyigelinayo arrimaha bulshada inta waa isbitaal xaata halkaas waa jaamacad kale run ahaantii wadadan waxay dadka u leedahay muhiimad aad weyn dhibaatadeedina mar walba soo laalaabatay ka urur ahaan ama ka dhalinyaro ahaan waxaan diyaar u nahay mar walba horumarka ka socda magaalada inaa wixii karaankeena ama kaalinta inaan ka qaadano waxaan meeshan sheeg fariin ugu dirayaa dhammaan ururada xayaata bulshada inay sidaan kale ayagana ay u shaqeeyaan bulshada sidoo kale waxaan meeshan fariin ugu dirayaa hay'adaha sheeg maamul gobolka dawladda hoose sheeg shirkadaha barefadka loo leeyahay ama xayaata dahabsida dahabshiil hormuud iyo shirkadaha maalgashiga forexiska inay shaqadana wada nagala soo qayb qaataan run ahaantii qofka haduu xayaato meel oo dadka dhibaysa oo wax ku bixiyo waa sadaqa jaari ah waxaan leenahay ka soo qayb qaata dhamaan intii xayaato haddana kaalin ka geysatay oo nagala soo qayb qaatay waxa leeyahay maasantii